marka calmaaniyadu markaan soo ururiyo waa aragti aaminsan in la noolaado nolol aan diin lahayn la noolaado anigu waxaan arkay Hargeysa ana arkay nin ku yiri wani salaada ma tukatido salaada ma tukatid soo caadi ma aha waa eray wanaagsan Soomaa odayaashiisi buu tago ka ergay ninka hadana la kala gaarin buuri ta ka dhacda muxuu kugu yiri aragtida calmaanada ma taqaana markuu dadka weeraraya isagu ninkaasi odayaashiisi buu tagay dabeetana labadii nin baa la sii maxaa kugu yiri de wuxuu kugu yiri buu salaadadku maxaa arimahayaga daakhiliga ah ninka soo galiyay wa aragti waxay yiraahdaan markuu isagu wax weerarayo imkaanu soo weeraraya wuxuu ninka soo shaacir sheekh maaha wadaad maaha maxaa calmaaniyinta iyo badan ka galay muxuu aqoonay ku leeyahay muxuu ka yaqaanaa waxaas uu ilaahay moogtay markaan ku raadnay maxaa waxa igu samaysay wuxuu oranayaa de wax xorriyal qawl xaq baan u leeyahay ra'yigayga cabiro way anna intii lag baan ku oranayaa wuxuu oranayaa xuquuqdayda shakhsiyeed baad ku xad gudubtay haye isagu tiisro wala sax marka wax lagu yiraahdana waa marka maanta laba ciladood baa jiro oo calmaaniga Hargeysa jooga ee 70 jirka ah cid sheegata ma jirto calmaaniga laakiin way buuxaan hadana or ma shadaadinba qof hebel yahdana male hadana waa buuxaan calmaaniga 70 jirka iyo calmaaniga 20 jirka ah ee Hargeysa jooga farq weyn baa u dhaxeeya calmaaniga 70 jirka ah ee dhowr 60 wax bartay isu yaqaana laba magac oo kala jiro oo malaa idinku aydan oo aqoon oo aqlaaniga iyo calmaaniga la yaahdee idinku wana u taqaaneen laakiin iyagu magacyo kale isu yaqaaneen waan sheegay calmaanigaasi mid buu ku fiican yahay mashkaladu isaga ay ku koobanta ma faafiyo markuu ugu fiican yahay waa markay inay isla garanayaan jaanta ay meel wada fadhiistaan islaamka iyo xantaan iyo wadaadada iyo meelaha laakiin calmaaniga yar 20 jirka ah waxaad moodaa in la yiri mushahar loo qoray inta Facebook ku jira uu faafinaya isagu waa faraqa u dhaxeeya labada magacyada isu yaqaanina aan idin sheegay aqoonyahan ma maqasheen waa artan inta aqoonyahan la leeyahay inta aqoonyahan meel kale ka raadin aqoonyahan waa ninkan sheegayo aqoonyahan waa ninkan marka sun doonayso kanuu ku soo biyashubaya aqlaaniga maxaa la yiraahdaa aqlaaniga waxa la yiraahdaa mufakkir bay kooreen mufakkir يعني وأنا مسكح بلارانو أنت أدوق أتكو ريجيسو أيو سقو وحكب بلاران أيو كيني ومفكر بكورنيا إن طبيعة عادها أولية علماني أتكو جران كريس وحا كميدا إن كستو قليها كحاشة دير يرخف في يوم يرادان علماني نسبة يرتشلوه مدة كصير لح جلاه سقو أنا أدفوجي لكن علماني مركل يهدو قط الشعائر الإسلام كوردن مركو أركو وحخص بقى إنه كاتشيستو وكوفيد وخميس وقد وحلاله وحي إسلام كل شغله هذا سيف عن سوء تقانينا وكلا كفتام يقول يعني اليوم ما أنت مكوي الرابط كبيرته وأمرك ولي بكو سوري رني وحكرأه وليه هاي حتى حافظ المساجد كله حلقة بينو كفوا قاعد أو ملك له وجوره وحلاله وحي شعائر الإسلام كه علمانية ويدبيا عقلاني جنا وهو عام كويه هاي markaad xadiis u sheegto ee aqligiisa ka way xukun waa daciif aayadana wuxuu ka oranayaa macnaha aad saartay macnaheedii maaha waxaanu caan ku yahay aqlaanigu ereyga leeyahay qadci de qadcina karimis oo nin balaaya socoto meel loo wato dad maanta wada ma qadcin karaysid waxaanay ku kala duwan yihiin aqlaanigu waa nin diinta wax ka yaqaan almaaniga Soomaaliga inta badan diinta wax ka yaqaan وسبب تكينس إنه دين تو أركم مشكلات أو عقدة أو قاعدة